بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. المناسبة أي هدلين مدحوينها دولة الصومالية فرماجو إيوه مدح السردون كهوري فهد ياسين وأعرف في عن إني هدلان مسنان تودان ليا بنانيغا dadka cadowga iyo mucaarad isku sheega oo beenta barbagandada ka sheegayo afartii sano ay meeshii joogeen wixii u qabsoomay inay soo bandhigaan iyo wixii aan u qabsoomin waa arrin fiican aan ku taageersanahay khudbadda taariikhigeeda u jeediyay madaxweynaha iyo waxyaalaha uu soo qabtay iyo ciidanka intay soo dhiseen iyo mushaarada joogtada ah uga dhigeen iyo arrimaha uu ka hadlo dhan iyo maqaalkii oo maalin dhaweed soo qoray laba maalmood ka hor Fahad Yaasiin ninka aamusnaanta badnaa oo lala yaabanaa eedamo badan iyo tuhumo badan lagu tuhmaayay marka inuu maqaal soo qoro asne iyo hay'adaas iyo waxqabadkiisa iyo waxa uu soo qabtay inuu sharaxay qaar ka mid ah inkastoo sirar badan oo dawladda aan la faafin karin laakiin oo wax ka sheegay riyadiisa ahayd inay oo ka dhigo sirdoonka Soomaaliya inuu la tartamo sirdoonada dawladaha dariska ah iyo mantiqada oo dhan guud ahaan waa arrin fiican iyo hawsha uu soo qabtay iyo waxyaalaha uu ka sharaxay intuu ka sheegi karo waan ku taageersanahay inkastoo tuhunka weyn oo la tuhunsanaa gabadhii ikraan tahliil asaga shakhsiyan lagu tuhunsanaa way khaarijiyeen la dhahay gabadha ka mid ahayd sirdoonka Soomaaliya oo hadda ilaa nolol iyo geeri midna lagu ahayn marka arrintaas ma ka hadlin mana u soo dhawaan ma garanayo wuxuu ga gaabsaday inuu wax ka dhahay fiicnaan lahayd waan ku taageersanahay inay hadlaan labada madaxa sirdoonka hore Fahad Yaasiin iyo hadda la taliyo uu leeyahay farmaajo uu yahay madaxweyne farmaajo oo khudbad jeediyay wuxuu qabsoomay ka hadlay in muddo badan ay aamusnaayeen dagaalka lagu hayo waxa waay dagaal إعلامي حتى dagaal noocyo badan la waay marka xagga warka xataa niman kan cadowga oo u shaqeeyo dawladaha shisheeyo oo dantooda bas ay tahay inay ka ridaan nimanka meesha si u qabsadaan mucaarad isku sheeg ah oo dal aan shaqo ku lahayn iyo niman jaahilnimo 91 loo noqonayo waxba la burburinayo 91 maxaad ka faa'iideen haddii dawlad jirta aad burburisay maxaa ku faanaysaa qasaara loo noqonayo wax lagu faanamiya teeda kale niman waxa soo baxay maaragtay taariikhda ay xusu doonto dawladnimada la saftay aan qabiil la safan waqtiga khatarta ahayd oo maaragtay waxa ka mid ah xaakimka gobolka Banaadir Umar Finish iyo niman kale oo namid ah oo qabiilka Hawiye ah oo farmaajo lama safan waxay la safteen dawladnimada iyo in wax la baabi'iyo nimankii isku cid yihiin ka soo horjeestay mowqifkaas xasaasiga nimanka qaatay saacada khatarta ah taariikhda xusi doonto insha Allah marka waan ku taageersanahay hadalkaas ay hadleen iyo soo bandhiga cadowga isku bahaysto dawladaha Imaaraadka iyo Kenya ay horboodayso iyo midowga Yurubta iyo Ameerika oo diidan 4 sano kale inay soo noqoto dawladdan si cagaha ugu istaagin isku bahaysta adeegsanahay niman mucaarad isku sheegay iyo calooshu shaqaystayaal siyaasiyiin insha Allah laga guuleysana insha Allah madaxda way soo noqonaysaa sida rajaynayno Soomaaliyana guul cadowgaas tirada badan oo ka guuleysanayna insha Allah. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.